بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحينا معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. وصار لنا كحارسنا من الغارات يحمينا. هو المنهاج نقرأه إلى الجنات يدعونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. وإن تسأل عن العليا فمعنى وصفه فينا وها نحن وقد بتنا نرتله مصلينا جوار الكعبة الغرة تواعدنا له حين فرتلنا وتبرنا وتجويدا وتلحينا. جوار الكعبة الغرة تواعدنا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحينا معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. وصار لنا كحارسنا من الغارات يحمينا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كبيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan gelaynaa in sha allahu tacaala muxaadaradeennii afraad ee maanta. muxaadaradaas oo uu ciwaankeedu yahay qayb ka mid ah taariikhdii tataarka. waxaa muxaadarada aan ka dhegaysan doonaa inoo soo diyaariyey sheekh mustafa xaaji ismaaciil. falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. وبعد، إخوتي في العقيدة، in la aamusaabay mala ku roontay si aynu isu maqallo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. رب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف waxa uu ku tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo amraya faqsus ilqasas, dadka taariikhda uga sheekee baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynayaa? ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala lacallahum yatafakkaruun, waxa ay mudan yihiin in ay fakeraan. يعني taariikhdu waa wax lagu cibro qaato. laqad kana fii qasasihim cibrat liuli اlalbaab. aayad kale alle subxaanaه wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramayo waxaa ku jirta wax ku qaadasho, laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah. waxa aan ka warrami doonnaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa. taariikhda bini aadamkaa dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag, dibna looguma arag bay tilmaamayaan. sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaaya aan wada noolayn, ibnulahir, waxaynu ka soo qaadan doonnaa bal eraye uu qorayo ibnulahir fii kaamilih. ibnulahir waa nin taariikhyahan oo muslima, wuxuu noolaa casrigii tataarka, laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dowla alkhawarzimiya iyo duminteedii, xataa ma soo gaadhin baqdaad iyo shaam iyo wixii ka dambeeyey o dhan. wuxuu geeriyooday baan filayaa 630kii hijriyada. wuxuu leeyahay ibnulahir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo, muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahy. kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayey buu leeyahy inaan qoro. dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku, xaadithatu tataar min alxawaadith alcudma والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. wuxuu odhanayaa dhacdada tataarka ku saabsani waa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunidaba lagu arka buu yidhi. waa masaa'ibta waaweyn bay ka mid tahay. waa masiibo dunidoo dhan haleeshay buu leeyahy, khalaa'iqdoo dhan ku dhacday, muslimkana gaar ku sii noqotay. waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu u abuuray tan oo kale hore ugama dhicin, dibna uga dhici mayso, xataa haddii la yidhaahda buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya. waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi, laakiin kuwani inba may sii daynin. dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan. gebagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya. wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo. dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray. tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray. mongolia muddo aad u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan. wakhti aad u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jina ilaa iyo poland inta ka dhexlay qabsadeen. waa jabaan iyo jina laga soo bilaabo oo caalamulislaami lasoo dhex maro, oo rushia oo dhan 27 milyan bay leeyihiin kilomitr square oo rushia la dul maro, oo ukraine la maro, oo poland la maro, oo majar la maro, hungary
oo Croatia la maro Slovenia la maro oo Bahrul Adrian Talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan taariikhda bini aadamka wax sida intuu wax u weeraro inta waqti yar ku qabta lama arag bay leeyihiin dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga waranno inaynu baranno wax ka baranno waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahamno nidaamka rabbaaniga ah Kazakhstan Afghanistan Pakistan waxa istaan oo dhan isku soo dar Iran ku dar intaas bay ka talin jireen dawlad Khwarizmiya waa dawlad gudaheeda makaa'id badan iyo isa suldar badan uu ka jiray dawlad Abbasiya colaad badan la gashay salaajaqadii Ruumin badan la dagaalantay salaajaqadii yani atrakta asalkooda ay muslimiinta ahaa suuradan kooban waxaan rabaa inaan idinka tusiyo sidii uu ekaa caalamka islaamiga waxa jirtay India waxa ka talin jiray iyana dawlad islaamiya al-Ghawriyiin loo oran jiray Faris qayb ka midi waa Persia qayb ka midi dawlad Khwarizmiya bay hoos tagi jirtay daal yar oo sokana waxa ka talin jiray niman loo oran jiray Ismaaciiliya waa firqo shiicada sheegata culamo badanina gaalaysiiso waa firqo waaga hore madaxnimada aad u jeclayd oo aad u ilaashan jirtay dagaalyahan ahayd dhalinyaradeeda si xoogan u tababari jirtay ku caan baxday iqtiyaalaadka caalam islaami madaxda la leynayo waxa la leynayo iyaga khaarijin jiray farsamadaas iyaga farsamo yaqaan ku ahaa oo iyaga la kala adeegsan jiray inay waxaas isticmaalaan rag badan oo duwalkii islaamiga waaweynaa ka tirsanaana way laayeen oo qaar intay suufi isaga dhigeen u tageen oo waxay si weydiisanayeen midig geliyeen qaarba si ay ku dileen Anadol markaynu eegno waa Turkiga dawlad as-Salaajiqa la oran jiray baa ka talinaysay oo muslima oo Alab Arsalan qaa'idkii weynaa ee muslimkii la oran jiray dawlad ka tafiirantay markaan umuuman eego caalamka islaamiga uu ballaadhnaa dawlado tiro badanina way ka jireen laakiin xaalkooda wuxuu ahaa uun kuwa isdilaya oo kooxiba kooxda ku xigta ay ku maqan tahay oo aan isbixinaynin xooggii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xooggii reer Yurub gaar ahaan afartan dawladood ee imikaba caanka ah Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo Jarmalka afartaas hogaaminaya Yurub laba dawladood oo Spain iyo Portugiiska oo markaa iyana jabiyay muslimiinta iyo xoogan baa markaa iyana jiray marka la eego caalamka islaami qaybtiisa waqooyi imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kristanku crusadeski oo dawlado yaryar oo kristana ka jiray sida Beirut ama Sida ama Akka ama Antakiya kuwaas oo dhan waxay ahayd dawlado yaryar oo iyana masiixiyiin ah oo meelahaas ka dhisnaa dawladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisadii bariga oo markaasi deganeyd dawlad Byzantiya la oran jiray Romanski Byzantiyiinta la oran jiray oo kiniisadan Russia iyo Greek iyo dhankan ay haystaan ahaan jirtay oo markaa magaaladan Istanbul la yiraahdo haysatay oo halkaasi fadhiisinkeeda wahaa waxa kaloo jiray dawlado yaryar oo iyana waxoogaa laaleeg oo مثلا dawlad al-Kurj kurjigu waa Georgia meesha nimka la yiraahdo ama se Armenia iyana dawlado yaroo kristan ay ka jiray imaaraat yaroo saliibiya intaasi waxay ahayd caalamkii labadii xoog ee isku hayay sidii ay u yaaleen mar qura ayaa waxa soo baxay dawlad cusub oo taariikhdii dunida bedeshay oo xoogagii dunida bedeshay oo muddo yar iyadu ku noqotay ad-dawla al-kubra ama aan idhaahdo al-qutb al-wahiid dawladda qura dunida ka jirta cid kale oo jirta aanay aqbalin waa dawladdii la odhan jiray Mongolianska ama Tatar
ereyga tataar iyo mongolian taarikhyahanadu waa ku murmaan keebaa kee dhalay keebaa weyn keebaa yar taarikhyahanada badh مثلا رشيد الدين الوزير kitaabkiisa la odhan jiray jaamic tawaariikh isagu wuxuu qabaa tataarku inay yihiin shucba min almaquul mongolianiskaa rasmiga tataarku waa qabiil ka mida buu qabaa markaa halka raagib asarjani iyo taariikhyahano badan in ay cagsiga u dhigayaan oo ay ka dhigayaan mogoolku inuu asalka yahay tataarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaa'il badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin calaa kullin labadan qabiil iyagaaba markii hore isdilay tataarka iyo mongolianisku iyagaa isdilay dowladnimay isku haysteen akhiiran waxa u soo baxay nin boqoroo cusub oo la yidhaahdo jinkis khan boqorkaa cusub ee magacaa la baxay magacaa qaar waxay ku tarjumaan waa naanays waa sidii kaysar iyo magaca noocaasi oo kalea waxay ku tarjumaanba kuwa wax tarjumaa waa qaahir dunya iyo amiir alcaalam iyo wax la nooca dunida ninkii ugu sarreeyey isaga magaciisa rasmigaa timojin baa la odhan jiray timojin ninkan la yidhaahdo wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'idah oo halyeeya oo ciidan hoggaamiya wuxuu kaloo ahaa baa la yidhahdaa abaabulo bulsheed nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan haddii la madhanayo mongolia maalan markuu qabsanayey qabaa'ilku markay isdilayeen dagaalladu galay reer buu intuu jebiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta wixii madaxoo dhan inta lasoo qabtay 70 ka mida nolosha igu kariya buu yidhi iyagoo nool baa la kariyey yacni ninka madaxdee sidaa u fakaraya buu ahaa waa mongolia gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeena uu boqortooyadan uu qabsan doono intuu qabtay buu 70 ka mida yidhi ha la kariyo iyagoo nool dheriga ha lagu rido ha karsamaan wuxuu ahaa nin dagaalyahana qaa'ida oo dad hoggaamin karo ururin kara manaxa aan digigaxan ah oo agtiisa naxariisoolina timojin agoonnimuu ku koray bay yidhaahdaan isagoo yar baa aabihii la dilay reerahooda labay hoofsaday mar dambuu soo lufluftay waxa kan akhiiran boqorkaasuu dhoqday timojin wuxuu isku dayey inuu boqortooyo fiican samaysto wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii mongolia la yidhaahdo dabeetana boqortooyadii chinesku ku durkay boqorradii chinesku iyana jebiyey china oo dhan buu qabsaday bari buu u socday ilaa kuuriyuu tegey inta ka dhexle kor buu u socday ilaa siberiyuu qabsaday siberiya ilaa kuuriya dowla alkhawarzimiya dhinaceeda ilaa iyo china dhinaciisa dambe dowlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan dowladdiisaas waxa uu u samaystay nidaam adag wuxuu u sameeyey distoor la yidhaahdo alyaasiq aw ilyaasik distoorkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaallay ayuu midba wax ka soo qaadqaatay dabeetana intuu isku dhafdhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hiddahoodiina wax ka mida ku dhaftay waa sidan dasaatiirtan iminka dunida taalloo kale diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata yahuudiyada inbuu ka qaatay kristan inbuu ka qaatay islaamka inbuu ka soo qaatay dhaqankii qabiilkooda iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay waxa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey kaasuu ku xukumay nidaam adagoo saarim ah maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey wuxuu ku caan baxay waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaaladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo yacni waxaa la yidhaahdaa fardaha leedday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhahdaa kumaankum ciidan ah oo fardaha leedda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankum mayl in ku dhadhow marka waxay dhahaan alxarb alkhaatifa waxaan maraykanku iminka yidhaahdo xuruub khaatifka ee laga gaadhsiiyo meesha la dumiyo taas buu isticmaali jiray baa la yidhaha wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag
wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga ah inay aqbalaan. good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan. wuxuu kaloo samaystay hogaamiyeyaal askareed military jananno ah oo dunida caan ka noqday. rag waaweyn bato biiji holaako yacni waa qaa'id la wada yaqaan bayden waa quwaaddii uu lahaan jiray ninka kani. waxay ahayn dagaalyahano aad ugu caanbaxay dagaalada. wuxuu aaminsanaa bay yidhaaheen mabda'a alqutb alwaaxid. aqtaab badan inaanay dunida ka jirin dunida in nin qura ka taliyo, dadku dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan. waxyaabuhu caanka ku ahaa waxaa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi. hadduu cid dawlada heshiis la galo inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin. sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla. haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabaya qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa, sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo. waxaan isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarzimiya iyo si uga takhallusay. xagguu ku socday, filosofigiisu muxuu ahaa, ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday, sidaa waa la sheegaa. laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu u fakerayay dawlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay. addawla alkhawaarzimiya waa dawladdii xukumi jirtay afghanistan, uzbekistan, turkmanistan, kazakhstan, tajikistan, bakistan iyo qayb eeraan ka mid ah. intaasuu isku haystay addawla alkhawaarzimiya oo muslim ah. caasimaddeeduna magaalo orjanda la yidhaahdo. orjanda turkmanistan bay ku taallay. caasimad ayay halkaa u ahayd. labada waddan waxaa ka dhexeeyey xusnuljawaar, si nabadgelyaa in loo wada deganaado. jankiskhan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisiddeedii ayuu mashquul ku ahaa. jina iyo dee kuuriya iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso. laakiin wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin, isna marmarsiiyo u noqday. waxaa dhacay dawla alkhawaarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga jina u dhow. ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray, tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay, baac mushtarkaa mari jiray. xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar mongolianisa, tujaar maguulkii ka mid ah ama tataarkii ka mid ah. dabeetana tujaartii oo dhan buu laayey. waa ballanfuryo sida u taalla. taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan. qaar baa yidhaha jawaasiis bay hayeen, qaar baa yidhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo diray. waxaasi waa iska mala awaallo. qaar baa yidhahdeen radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday. waxaasoo dhamm waa wax iska qaldan. bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsantayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidka warinayay sheekh alalbani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacu lxabasha maa wadacuukum watruku tarka maa tarakuukum. waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xabashida iska daaya inta idin daynayso. xabashidu inta ay idin dayso idinna iska daaya. waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga la ydhaha ama turkiga la ydhaahdaa. turkigu waa qabaa'ilkan bariga o dhami ciddii ay ka soo jeedeen markaas. ma aha atractan oo qura. atractan asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen. taarikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhami tarkigaasay ku jiraan. watruku tarka maa tarakuukum ma dhicin. jinkis khan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii khawaarzim maxamed ibn اlkhawaarzim shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray isagoo le nimankii laayay tujaarta gacanta halayga soo geliyo. boqorkan qaybta muslimkaa haystaana wuxuu yidhi maya annagaa maxkamadaynayna haddii ay jirto
xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan dabeetana umay cuntamin Jenkins Khan wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi hala soo dhiibo boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa ninkii uu soo diray baa wuxuu yidhi isagana hala dilo awal waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo halay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la isku hayay oo tii Afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay Jenkins Khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal waa iclaan xarb labadii dawladood dagaal baa loo diyaar garoobay Jenkins Khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay محمد بن خوارزم شاه ninkan la yidhaahday dawladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii Arjanda wuu ka yimi isna barigu soo kacay laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi waxa la isugu yimi webiga Siixoon taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan Sardaria qolada kalena ay ku tilmaamto waa dawladdan Kazakhstan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dagaalka kan 20,000 oo muslim ayaa lagu waayay Tatarka ama Mongolianiskana waxaa la yidhaahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay 4 maalmood baa la isjafayay oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yara gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay waqtigii dib loo kala yara baxay ayuu boqorkii Mohammed ibn Khawarizm Shah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan raga badhna waxay yidhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimadii inay ku noqdaan caasimadii markaa galbeed waqooyi fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durgsantay ciidankiisii dib uu ka haystay wuxuu kaloo ku talagalay inuu dee ciidamo kala soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaafa alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dawla salaajiqa waxba kama helayo gawriyiinta waxba kama soo helayo طaa'ifa alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga la iskuma fiicna aطraaf الdawla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigto o dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waاصbiruu ina allaha maca الصaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi waصbiruu ina allaha maca الصaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnadu waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaaba haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bal
inay iscaawiyaan daaye dagaalada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiintaa cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisi iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay jenkis khan maxaa laga rajaynayaa marka hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka jenkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey uzbekistan buu soo galay wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay bayaanku odhanaya indiya goormuu tegayey ingiriisku waa kuwa axad britaniyin ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan kaliba oday kaloo faransiisaa tegey markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad mooddo ina iyada to lagu guray idan shalay ahayd baris iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn 616 hijiriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar magaaladii buu la go'doomiyey magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegey ciidamadii uu qaybqaybinayay oo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaane qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan laakiin muqaabil ilamaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo dadkii badh baa caynkaa yidhi badhna waa diideen magaaladii markay isqabatay qolole aan isdhiibno ciidankan intaa leeg boqorkeenniba tegiyo iska celin kari mayno iyo qolana aan isdifaacanay noqdeen waxaa xoog batoo tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno qoladii lahayd aan isdifaacno qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen ma tataar baa la iska celin karaya aan isdhiibno way isdhiibeen jenkis khan dhaqamadiisii u yaqaanu markaa ku dhaqma qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiye ee maxaan samaynaynaa markaa qolada kale aan weeraraya albaabaday u fureen magaaladii buu soo galay qoladii isdhiibtay wuu iska daayey wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen haddaba dagaalkaynu wada gelaynaa qolada kale ayla weeraraysaan waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii deganaa maxay afghanistan waqooyigeeda iyo akraaddii ciraaq iyo shiicadii ciraaq baabkii oo kale weeyaan waa lala jafay markii la jafay 10 maalmood ayuu xisaar ku hayay go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn 10 casho kadib ayuu jabsaday
dabeetana wixii ku jiray midh lagama sii dayn waa la gumaaday markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi wixii magaalada dhaqaale yaalla ha la soo saaro dahabka iyo kunusta iyo fidada iyo wixii aa meesha ku haysateen intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro waa la cabsanayaa wixii ciidanka harsanaa raggii yidhi intii tidhi aan dagaalanana laga takhallus intani waa intii awalba isdhiibtay calanka caddi dhiibatay xoolihii baa loo keenay magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayey hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayey waa la waday magaaladan iyo siday u ekayd ibnu kathiiroo ka warramaya wuxuu leeyahy faqataluu min ahlihaa khalqan laa yaclamuhum ila allah waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alla mooyaane cid kale garanaynin carruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteenoo waa fara xumeeyeen bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu fara xumaynayay xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu fara xumaynayay ciddii madaxa ka yara taagta ama isa soo taagtaana madaxa laga jarayay markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay wixii rag joogay dilay wixii dumar joogay la fara xumeeyey ayuu yidhi haddaba baxa baaqigiina wuu gubay baaqigiina wuu gubay bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimatay magaalada bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen wa nuhlik وفينا أن نهلك وفينا الصالحون حديثكي صحيح muxuu lahaa nabigay weydiisay mayaanu halaagsamayna mise waana la halaagaya iyadoo dadka saalixiintii nagu jiraan qaala nacm ida kahura alkhabth buu nebigu yidhi xumuhu hadduu bato haa waa laydin wada halaagaya markuu bukhaaro dhulka la simay buu dhaqaaqay isagoo ciidankiisii wata wuxuu qabtay magaalada ku xigta samarqand samarqand waa magaalo weyn oo zabakistan meesha iminka la yidhaahday ku taalla waa magaalooyinkii muslimiinta ee caanka ahaa waa samarqandiya agagaarkeeda maalan suqdatu samarqand taarikhda waa ku aragteen waxay yidhahdaan jannaat dunya arbaca baa la odhan jiray jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd afarta la tirin jiray suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeeran samarqanda waxay idhahdeen 5 maalmood oo aad dhan kastaba u socoto 5 maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay waxay idhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso webiyadaa wada dareeri jiray dhul aad u qurux badan buu ahaa dad aad u tiro badan oo muslimiin inay degan yihiin magaalada bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey ibnu kathiir maxaabis ibnulahir aan idhaahdo ibnulahir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaare iyo loo kala socday qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa inta kalena waa la raraa waa inay socotaa haddaad daasha oo wax lagu dhibo ama qaadi kari ama socon kari waydana waa lagu dilaya dee dadkii dilkay ka cararayaane qofkii ku ruushin karaaba waa soo socday samarqando markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samarqando bajiyo inta aanu dagaal la gelin maxaabistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu 10kii walba calan buu u dhiibay kii ah calamadii tataarka ah 10kii qofba calan buu siiyey waxay reer samarqando arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda waaba muslimiintii maxaabista ahayd kuwan calanka sitaa ciidamadiina waa ka sii dambeeyaan markii meeshii u arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay qalbi jab maxaabistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi
ciidankiisa qoladii gamuunlayd ahayd ama wax ganaysayna wuxuu yidhi nin walba maxbuus qabso kaxayso gaashaanku waa isaga isu dhig dabeetana gamuunkaagana rid kanna ku beegnow hadduu nuuxnuuxsadana gowrac waxaana yidhahdaan shield bashariya yacni dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada dacalkeedii markii uu yimina wuxuu idhi ku hor gowrac magaalada baaqigiina halkaa birta lagu mariyey reer samarqanda markaa naftii baa isugu timi reer samarqanda naftii baa haysata reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu u sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey 50,000 ee askaree meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo dibadda ku dagaalamo dibadda uma bixine magaaladii gudaheedii buu galay qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo waxaa la isku dayay in la qanciyo fula baqa cararaya dee cidima joojin karto waa diideen waxay aqbaleen samarqanda magaaladii samarqanda la odhan jiray inay iyana dhiibaan dadkii markuu sidaa arkay culammadii iyo dadkii baa wada hadlay waxaa la yidhi war kuwani askarna maa cidinayna difaaci maysa aan isdifaacno aan wax iska celinno 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada degganaaya seefoodiiyo warmahooda qaato o yidhi waa isdifaacaynaa dadka kani waa dad xamaasade hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayday isdhibteen bukhaara ahaydba sidii loo galay marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin inay idinkoo soo jeeda dhinta waa soo baxeen jinkis khan waa khabiid taagtiyahana 70,000 markay soo baxeen oo u garanaya inaan ahayn raggii militariga ahaa ee dhabta ahaa ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aanu baqa guuro aanu baqa cararo dadkii markii la isku soo baxayba wuu u baqa cararay ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararaya oo tegaya laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo waa soo baqa cararay dadkii awalba xamaasadaysanana waxay islaahayeen wallahi waa kaa gaalka idiin jabay seeftaa lagala daba cararay waa laga soo daba aguumay ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo midadka ay ka heli lahaayeen dabeetana labada dhinac baa askartiisii ka gashay 70,000 madaxa laga jaray 70,000 ee soo baxay 70,000 madaxa laga jaray dufca waaxida mar keliya 70,000 oo reer samarqanda ah oo intoodii iimaanku uu ku jira wax isbaday ah iyagana la gumaaday maxaa soo hadhay magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskii buu ku bilaabay ciidankii 50,000 ee war dagaalama looga taag waaye gudaha ku jiray jinkis khan bay la xidhiidheen waxay idhahdeen waa isdhiibaynaa laakiin nabadgelyana sii
dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideen warsaani si maaha baa la yidhi qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysatay tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay dabeetana albaabadii magaalada ay qasab ku subeen qasab bay ku fureen waa askar shacabtana ka adag waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi waa cararaya waa askar shacabkan iyo masaakiintanna ka adag halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo magaaladii samarqanda ahayd albaabadaa loo furay dabeetana jenkis khan iyo ciidankiisii baa yimi wuxuu yidhi shuruuda heshiiskee nabadgelyada a ku helaysaan waxa weeyaan kow hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen waa ciidankii dee dawladda markaa wuxuu leeyay wixii hub ah iyo fardo iyo dawaab aad rarataan xoolo wixii ah la soo wareejiyo idinkana waan idin geynaya waa idin kaxaynaya dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qadabadsiinaya waa rag dee jabay yacni fulaha haddii inan yari u hanjabo inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata waa jabeen nimanka kani maadaama ay jabeen hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay waa un nidaamkan maantaba la isticmaalay cunaqabatayn ku soo roga hubkaa laga dhigo yaan waxba laga iibinin waa kan maalinta dambena oo lagu duulaa marka wax walba waktiga laga dhigo hubkao dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan wixii xoolaana la qaado dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsooyin inta ay ka sheegayaan dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsado la kaxaysto aanu cuntaminee ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay hala dilo jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana hala gubo jenkis khan magaalada tan dhulku la siba bukhaaro wixii ku dhaceen samarqanda iminkana sidan ay socoto cid muslima oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin boqor yaroo waliba wuxuu salaaday adigu dawladdaadii yarayd iyo xuduuddaadii iyo intaadii iyo askartaadii iyo waxaaga waad haysataa reer hebel baa la laynaya adiga maxaa kaa galay bale waxaabaa laga yaabay inuu ku farxayo dee dagaallo horay wada galeena ways hayeen waxbaa la yaamin waa wax maanta dunida ka socda une falujaa la liqaya inta kalea daawanaysa falastiin baa la liqaya inta kalea daawanaysa waa nafsi shay jenkis khan magaaladii samarqanda la yidhaahdo samarqand ayuu fadhiistay dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakti badan bay iga luminaysa magaalooyinka kan iyo layntooda wakti badan ayaa iga luminaysa ee maxaan samaynayaa 20,000 kun ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dawladda tani jabtay ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarzim shaah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo aa eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin diray isna wuxuu degay samarqanduu iska degay uطlubuuha ina kaana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay idhaaheen meel kasta uu jiro ninkaas raadiya samada hadduu qabsadaha ka hadhina waa istihzaa bilmalaayiin almuslima u fiirso waa 20 kun oo askari dawladda dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhextaa ayuu u diraya waa caasimaddii waddanka meeshuu ku socdaa
20 kun baanu u diray marka kan soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka ninkii moxamed ibnu khawarzam shaah ahaa waa kii cararay magaaladiisii orjanda la odhan jiray buu tegey wixii uu ciidan urursan kara u urursaday meeshii buu isu joogay wakhti yarba intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay organda maraya organda waxaa mara nahru jiixoonkaynu sheegayno webiga markaa dhankiisa galbeed bay magaaladu ku taallaa dabeetana webiga sad weyn buu leeyahay yacni wuxuu leeyahay biyo xidheen weyn ayay meesha ka samaysteen 20 kun ee askari oo yaacayo tataarka ahaa baa soo galay dhinacii bari bayse soo taageen wabaa ka xiga magaaladii say u tallaabi doonaan qolada tani waxay arkaan mar haddii webigii weynaa dee meesha ka xiga inaan cidina doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo taktiik military bay nimankanina isticmaaleen markay meesha yimaadeen waxba waayeen looxaan bay dhiseen dabeetana harag bay ku dahaadheen loox xeedhoo kalea la sameeyey harag baa dabeetana lagu dahaadhay wixii qalabee ka qoyayay oo dhan baa lagu guray dabeetana fardihii baa laga daadegay faraskaa webiga lagu ridayaa ninkana farasku dabada qabsanaya looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya farduhu waa dabaal yaqaanin faraskaa dabaalanaya oo ka tallaabaya askariguna faraskaasuu dabada haysanaya askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa bahashan dhan buu jiidaya looxan dhan ee alaabtu saarantuu jiidaya nidaamkaasay kaga tallaabeen 20 kun ee askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaa loo tallaabiyey intii waxaan oo ciidani soo tallaabayaan xaggee lagu maqnaa dowladda mukhaabaraadkeedii miyaa la hurday sidee wax ahaayeen lama garanayo moxamed khawarzam shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay idhaa kala qaadeen nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii oo dhankii kala taagan moxamed khawarzam shaah markuu ogaaday in lasoo tallaabay koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu kaxaystay waa dhaqaajiyey waa ka baxay magaaladii isagoo aan waxba eegin ibnu ahiir wuxuu leeyahy waraxala moxamed khawarzam shaah laa yalwi calaa shayin fii nafarin min khaasati cidna isagoo aan dib u eegin waxoogaa yaro kooxdiisii u kaxaystay dabeetana wuu baxay wuxuu qabtay nisabuur nisabuur waxay ku taallaa koonfurta arjanda ayay ku beegan tahay maadaama uu cararay ciidankiina madaxdu de hadday kaa carartay ciidanka intii kalena waa iska kala yaacday laakiin 20 kun ee askari nidaam ayuu ku soconayay ninka jinkis khan la yidhaahdaa awaamirta sideeday u fulinayaan ma odhan magaalooyin gala cid qabta aniga ninkaa ii doona bay yidhaahdeen ciidankii markuu kala yaacay ninkiina uu baxsaday magaaladii may eegin odaygii cararay bay ka daba tageen magaaladiina waa iska dhaafeen madaxweynihii waa rooray wuxuu rooraba magaalada naysaabuur la yidhaahdo oo koonfur ka xigta ayuu yimi kooxdanina waa ka daba timi waxba may dilin waxba may boobin waxba toos bay u socdaan muslim tiro badan bay dhex marayaan muslimka laftiisiina waxays idhaahdeen waar beladan haddii ilaahay idinka badbaadiyo baa isku taataabinina iyana ha idin dhaafaan iyana cidna ma taabtaan muhiimaddooday u socdaan dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankan aan idinba taabanin idana ha taabanina la yidhaho jidkaa loo baneeyey jidka markii si fudud loogu baneeyey odaygii bay daba jabacsadeen intii aanu ciidanba urursanin ayaa warku soo dhacay ee odhanaya naysaabuur nimankii waa dul taagan yihin 20 kun ee askar oo xiimaya naysaabuur bay joogaan
markuu warkaa maqlay madaxweynihii waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maazandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey waa ka baxay tiina waa eeraan oo magaalo ku taalla naysaabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay kumay weecan magaaladii odaygii bay ka daba tageen magaaladii iyana waa iska dhaafeen madaxweynihii sidii u ordayey wuxuu soo galay magaalo rayi la ydhaaho waa dhanka bari buu markaa uga kacay markii hore arjanda buu ka yimi naysaabuur oo koonfuruu yimi bari buu u jeexay haddana wuxuu qabtay markaa magaalo rayi la yidhaahdo ray markuu yimi ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan cidna laynin ay daba socdaan waa dhaafay iyana hamadaan buu usii kacay waa magaalo kale oo eeraan ka mida iyana nimankii tataar waa yimaadeen waxaa la yidhi duqii hamadaan buu ugu tawsiiyey waa ka daba shubeen magaaladii iyana kumay weecanin waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga dad muslimiina jooga waa ummad muslima waa madaxweynihii ninkan la eryaya laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labadaa magaalo dadka sidii u soo gaadhay cidiba xaggan faraha u fiiqi mayso waa loo baneeyey jidka iyana waa ka daba tageen hamadaan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan rayi buu ka soo baxay hamadaan buu joogaa maazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fireeyey maazandaraan buu dib ugu noqda iyana waa ka soo daba laabeen wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan waa carara madaxweyne waddankiisii weli haydan sii ka cayaaraya maxaa la yidhahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka waa baxsada baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhaahdo tabristan tabristan waa gobolka ku xiga ghazwiin baxru ghazwiin baddan yar ee ghazwiin la yidhaahdo gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa tabristan la odhan jiray gobolkaasuu ta ugu siiyey dabeetana waa ka soo daba baxeen wuxuu gaadhay badda markuu tegey ayuu doon fuulay dabeetana gaziirad yaroo badda barhtankeeda ku taalla ayuu degey siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen nasiib darro dee wuu ka baxsaday iyo nasiib wanaag mid ay tay garan maayo boqorkii lama hayo meeshii markayse soo taageen dee tani webi maahe waa bad markaa dib bay uga laabteen boqorkii meeshii waa ku busaaradsaday waa ku cidlaystay waa ku fool xumaaday waa baahaday waa ku baktiyey waa dhintay addawla alkhawarzimiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey furaashkuu ku seexan jiraa lagu aasa addawla alkhawarzimiya ee dhanna jayna dacalkeeda joogta dhanna ciraaq dacalkeeda joogta dhanna baxru ghazwiin joogta dhanna nahru sind ayay joogtaa bakistan afghanistan istaan oo dhan nahru sind webiga la yidhahdee mara gobolkan sindi la yidhahde ku yaalla bakistan intaa waddanka leeg ninkii ka talinayey kafan baa loo waayey furaashku ku jiifaa lagu aas aynamaa takunu yudrikkum اlmowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad tegtidba geeriyi way ku haleelaysaa addawla alkhawarzimiya haddaan in yar dib ugu noqdo moxamed ibnu khawarzim shaah wax cajiibaa ka arki doontaan maddaan isaga taarikhdiisa in yar ka warramo 21 sannadood iyo weliba bilo ayuu waddankaasi ka talinayay 21 sane uu ka talinayey boqortooyadiisu way sii ballaadhanaysay boqortooyooyinkii yararaa ee agtiisa ka jiray oo dhan wuu baabi'iyo isaga isku soo hoos daray min ciraaq ilaa turkistan tan hadda uu qaybta haysto china ilaa ciraaq inta ka dhexlay dowladdani ahayd
afghanistan buu xukumi jiray, qayb indiya ka miduu xukumi jiray, sajastan buu xukumi jiray, maxaa la yidhahdaa karman oo bakistan qayb ka mid ah buu xukumi jiray, tabristaantaynu ka warramayno waxaasoo dhana buu haystay. ninkan xaalkiisu siduu ahaa? ninka kani shaksi ahaan cibaadiya maamulba uu ku fiicnaa baa la yidhahaa. bal u fiirsada, waa wax cajiiba arki doontaane. waxay idhahdaan wuxuu ahaa nin sabir badan oo dhibaatada u adkaysi badan oo socod badan oo aan raaxo jeclayn oo bidhbidhka nololeed aan u jeedin, laakiin madaxnimo hunguri uu hayo, madaxnimada aada ugu adag, boqortooyadana ilaashada. shakhsiyadiisa qof ahaan waxay ku sheegaan inuu ahaa nin cilmi lahaa oo culammada sharfi jiray oo cilmiga jeclaa oo majaalistiisa cilmiga la fadhiisan jiray oo ahlu cilmiga ka barakaysan jiray oo la noolaan jiray, oo haddaa xaggeeda inkaartu kaga dhacday. isagu shaksi ahaan waxaa la leeyahy nin cibaadaysto caynkan oo caynkana buu ahaa. maamul ahaan waxaa la leeyahy nin dawladdiis iyo waxan ilaaliyo si fiican u maamulo buu ahaa. waxay idhahdeen mashkiladiisu wuxuu ahaa siyaasi hinaasiya buu ahaa. madaxa in cid kale kor u qaado baanu ogolayn, keligii talis, keligii inuu taliyo. walidalik ayaa ibnulahir wuxuu leeyahy وكان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم وبقي هو وحده سلطان البلاد. يعني wuxuu tilmaamayaa ninkani buu yidhi dhulkoo dhan buu qabsaday, boqorradii kale iyo madaxdii kale oo dhan buu laayoo gumaaday, keligii baa meesha u hadhay. markii isaga tataarku jebiyeen buu yidhi lam yabqa fi lbilaadi man yamnachum walaa man yuxmiiha. haddaan si kale u tilmaamo waxa weeyaan aniga mooyaane madax kale yay jirin buu taagnaa. madaxdii kale iyo wixii kaleo dhan buu dhulka la simay, isagu markii uu jabay. qisatu tataar oo min mongolia ilaa kiivna waa layga rabaa inaan ka warramo inta ka dhexlaya si loo qabsaday, wakhtigiina 10 daqiiqa ka hadhay. marka aan soo koobo waxaan odhan karaa dadka muslimiinta ah dhibaatadii dhexdooda taallay baa jebisay, midnimo la'aantii baa jebisay. dabeetana intii kale markuu gumaadayay isagoo qura soo hadhayay, isagu markii la jebiyeyna wax ka dhiciyo waaye. halkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasaddiisu ahayd meel kasta oo dowladdii nebi moxamed ay tagto madax muu bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam. manaahijta iyo maamulka qaabka loo wadunbuu wax ka bedeli jiray, laakiin ma jiro reeruu suldaankiisa casilay, boqoruu meeshiisa ka qaaday. wixii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhulkuu qabsaday ma jirin nin madaxoo meeluu haystayba uu ka qaaday, laakiin wuxuu bedeli jiray uun qaabka wax loo maamulayo iyo siday wax u socdeen. ciidankii yaraa ee 20 kun ahaa dib bay u soo laabteen. ciidankaas iyo samarqanda 650 kilomitir baa u dhexeeya intay jareen ee ninka ay eryayeen. caalamka muslimka ee ballaadhan bay iska soo dhex marayaan iyadoon cidina taabanaynin, waayo muslim nafla baan marka meesha joogin. waxay ku soo noqdeen magaaladii mazandaraan lo odhan jiray, dabeetana magaaladii bay qabsadeen iyadoo magaalo xasiin ahayd. mazandaraan waxay ka mid tahay magaalooyinkii aan cahdigii cumar markii bershiya uu furtay oo dhan mazandaraan muslimiintii saxaabadu way furan kari waayeen. waxaa la yidhaahdaa waxaa la furtay casri lumawiyiin, maxaa la odhan jiray sulaymaan ibn cabdilmelik wakhtigiisii baa la furtay. yacni magaalo qalcado aad u adag labay ahayd. haddana dadku markuu qalbi ahaan jabo 20 kunee ninkaas soo waayey baaba soo cagmariyey, ayaa gacanta soo mariyey. mazandaraan iyagaa qabsaday. dabeetana dib bay u soo noqdeen, waxay ku soo wecdeen magaaladii ray la odhan jiray. ray markay ku soo socdeen dhexda waxay ka soo heleen ninkii madaxweynaha ay eryayeen hooyadii iyo waxoogaa carruurtiisii iyo dumarkiisii ka mida bay meel dhexe ka heleen. intiina intay maxbuusnimo u qabteen bay u direen. waa 20 kun waxaan sidaa wax u wadaa. maxaabiis intay ka dhigeen bay waxay u direen jinkis khan. magaalada rayi bay yimaadeen. markay rayi yimaadeen iyana cagtaa la mariyey.
tuulooyinkii ku dhadhowaa baa la yimi iyana cagtay soo mariyeen. waxaa la yidhaahdaa khaswiin magaalada la yidhaha markay yimaadeen 40,000 oo qof bay madaxa ka jareen. waxay soo galeen azerbaijan gobolkan la yidhaahdo azerbaijan bay iyana cagta mariyeen. magaalo tabriiz la yidhaahdo bay yimaadeen. tabriiz waxaa haystay bay yidhahdaan nin madaxoo khabriyo cabiska ahaan jiray oo ozbik ibnulbahlawaan la yidhaahdo. lacag iyo maryo iyo waxbuu kala hortegay waa 20kii. dabeetana wuxuu yidhi ammaanna siiya intan qaato waa ka aqbalayno waa iskaga tageen. waxay yimaadeen magaalo tabriiz la yidhaahdo. reer tabriiz waxay yidhahdeen dagaal baanu ka xignaa. dagaal bay u soo baxeen jihaad bay iclaamiyeen. qolada tani waa khatar bay yidhahdeen ayna dhaafiya waa iska dhaafeen. armeniya iyo georgiya bay tageen cagtay mariyeen waa dhaafeen. waxay tageen magaalo la yidhaahdo qabiilkan kurjka la yidhahdo. kurjigu waa kuwan iminka georgiyanka la yidhaahdo. cagtay mariyeen waa kristan qabiil ah iyo wathaniyiin bay isugu jireen. kuwaasna cagtay soo mariyeen. magaalada tiblis la yidhahdo ay cagta soo mariyeen waa soo dhaafeen. sanadkaasi ah 617 ayuu wuxuu ka dhigay khuraasaan oo dhammi inay bilaa dawlad noqoto. khuraasaan iyo khawaarzm labada gobole la yidhaahdo. khuraasaan waxaa la yidhahdaa waa gobol eeraan waqooyigeeda eeraan berigeeda iyo waqooyiga afghanistan intaasoo isku baxsanba khuraasaan lo odhan jiray taarikhyahanadii hore. waa meeshay ku taalla magaaladan la yidhahdo balkh iyo marwe iyo naysabur iyo haraat iyo ghazne iyo waxaasoo dhammi. dhulkaasoo dhan buu soo maray oo wada qalaac xasiina ahaa. maadaama wakhtigu iska gebageba yahay bal maanta halkaasaan ku joojinaya. wallahu aclam wabillahi tawfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكii hore waxaan ku soo tilmaamnay الدولة الkhawaarzimiya iyo tataarka dagaaladii dhex maray. waxaan soo tilmaamnay in dowladda ay duntay madaxweynaheediina uu baxsaday kadibna uu ku geeriyooday jasiirad yar oo ku dhex taalla baxru khaswiin. waxaynu soo marray magaalooyinkii bariga xigay ee waaweynaa siiba bukhaara iyo samarqand iyo wixii ka ag dhadhowaa oo tataarku ay gacanta mariyeen. waxaynu hadda isku dayi doonnaa bal isla sanadkaasi 617 hijiriyada oo runtii ahaa sanadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen iyo jankis khan waxa uu ka yeelay. dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo khuraasaan iyo gobolka la yidhaahdo faris. ama aan idhahdo gobolka la yidhahdo khuraasaan faris waa usoo noqon doonaa iyo gobolka khawaarzim. khuraasaan waa gobol ku yaalla waqooyiga afghanistan iyo bariga eeraan. intaasoo la isku daro ayaa taariikhdii muslimiinta hore loo yaqaanay khuraasaan. waxaa ku yaallay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd balkh, ay ka mid ahayd marwa, ay ka mid ahayd nisabuur, ay ka mid ahayd haraat. waa magaalooyin inta badana maqashaan fulaan annaysaburi imaamu muslim oo kale ama fulaan almarwazi waa reer marwa ama albalakhi.
magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena ilaa laga soo gaadho ghazna dawla alghaznawiya dhulkay joogi jirtay ghazna waa kaabul hoosteeda ilaa 150 kilomitr bay ka hooseysaa khawaarzamna waa magaaladii samarqande aan sheegaynay bay bari ka sii xigtaa iyadu markaa ama aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa